asxaabta ku soo dhawaada Runsheeg Media Network asxaabay waxyaabaha Soomaaliga lagu arkayo waxa waaye cajiib ayay noqdeen runtii wax la yaab leh ayaa Soomaaliya lagu arkay oo maxay yihiin waxaas Soomaaliya waxa lagu arkay kaneeco aan Soomaaliya kaneecada lagu arki jiray aan ahayn oo noocyo kala duwan waxa lagu arkay Soomaaliya baranbaro noocyo kala duwan leh markii la baaray waxa la ogaaday baranbaradaas in laga keenay dibadda oo la soo safriyay waxa la ogaaday in kaneeco ama bahashan kaneecada dhahaan oo dadka qaniinto in noocyo kala duwan lagu keenay diyaarada lagu keenay si Soomaaliya dadkeeda loogu dhibaateeyay adduunka waxa jira waxa la yiraahdo biological warfare waxa la hajiro ama environmental damage wax lagu sameeyo tii hadda Soomaaliya ku socoto yaa sameeynayo dawladaha sameeynayo ilaa hadda lama yaqaan laakiin waxa la arkay baranbaro ka duwan baranbaradii lagu arki jiray Soomaaliya waxa la arkay kaneeco ka duwan kaneecadii Soomaaliya lagu arki jiray halkaas marka waxa kaga muuqato in loo soo safriyay oo diyaarada lagu keenay oo maraakiib lagu keenay dadka qaar waxa laga dhahaan ajnabiga Soomaaliya ku soo batay ee dadka Soomaalida ee qurbaha ka imaanayo ay soo raacaan boorsooyinkooda dharkooda waa suurtagal laakiin xaddiga la arkay ee baranbarada lagu arkay Soomaaliya meelaha kala duwan jidad ha noqoto maqaayadaha ha noqoto isbitaalaha ha noqoto xaafadaha ha noqoto hoteelaha ha noqoto baabuur dhexdooda ha noqoto baranbarada iyo kaneecada lagu arkay way ka badan tahay baranbaro laba qof iyo hal qof iyo saddex qof iyo ay keenaan iyo kaneeco ay keenaan marka saan ku sheegay waxaan ku dhahay adduunku waxa la yiraahdo biological warfare ama mataqaanaa environmental muxuu ahay hasad waxa la hajiro oo lagu sameeyo weerar lagu qaado deegaanka iyo cimilada oo dalkaas hadii loogu talagalay in weerar lagu qaado mataqaanaa lagu weeraro ama lagu abuuro cudurro epidemic oo faafa xayawaanana la keeno sida kaneecada waxyaabaha hadda ma taqaanaa kaneecada baranbarada hatta hadda Soomaaliya waxa la keenaa in ogtiin kala moogi miro seeds oo abuur dalag markii la keeno dalaga kaleento ayuu saameynaa ila laan la dhahaa dalaga kale oo saameynaa macnaha ma dabar jaraayo laakiin geedihii kale ka agbaxay ayuu baabi'inaa marka waxay qaadanaysaa sanado inay geedahaas kale ay ku agbaxaan ama waa ka saaraan meesha xataa markii ay sanado badan oo meesha isku yaal geedka si tartiib u baaba'a waxyaalaha la arkay marka hadda Soomaaliya lagu arkay waxa kamid baranbarooyinkan ee la yiraahdo mataqaanaa Germania cockroach allaha Paratella Germania allaha Americana ma aragtay cockroach iyo Oriental cockroach marka Planeta cockroach iyo mataqaanaa waxa kale oo jirto baranbaradan hadda la dhaho inta badan baranbarooyinkan hadda la arkayo waxa sida hadda muuqata calaamadahooda waa kuwa hadda meesha ay kaga muuqdo waayo ujeedin waxa baranbarooyinkan waxa laga helaa macaan ku Turkiga caan ku Turkiga keenay ma naqaan anaga laakiin Turkiga caan ku hadda Planeta epidemiology baranbaradan la cockroachka waa Oriental way laakiin midan Germaniga cockroach la dhaho waxa caan ku Turkiga iyo midan Americana cockroach oo Planeta Lebanonita markii Spanish ahaan loogu dhawaaqo marka baranbarooyinkaas lagu arkay Soomaaliya kaneecada waxa la arkay kuwa kala duwan ee keena xanuunkan dengue ama taqaana duumada malaariyada midan Zika virus ka keento oo hadda ilmaha hatta ay ku dhashaan madax yarayga ilmaha madax yar hatta waa taqaaniin cudurkan Zika kaneecada keenaysa ayaa lagu arkay Soomaaliya ku badan waxa lagu arkay kaneeco kale oo dadka ku keenaysa xasaasiyo iyo asmo oo sanbabada iyo maqaarka finan ka soo bixinayso dadkana neefta ku dhajinayso waa la arkay oo ka duwan kaneecada aan naqaanay oo yar oo u eg sidii muxuu ahay calaamadaha u sameeysan sidii marwaxadaha warwareegaha camal u sameeysan sharaxaada leh ayaa la arkay waxa Soomaaliya intee ka imaadeen oo wax mataqaanaa biological warfare ku socda ama environmental mataqaanaa damage lagu sameeynayo Soomaaliya shalay hadda ogeed Soomaaliya in toxic waste dam lagu sameeyo oo wasaq haraadi hub iyo sun lagu soo jira badda kalluun la xaalufo jira maanta waxay mareen in hawadii laga soo galay oo la keenay kaneeco iyo baranbaro ay mareen maanta khatartaas marka khatar weyn waay oo soo socoto waxa la rabaa marka wasaaradda caafimaadka inay sameysato wax la yiraahdo radar health inay sameysato
radar health waxa waaye ma ahan radarkii diyaaradaha ee lagu la soconayay wixii diyaaradaha soo galay hawada iyo ka baxay ma ahan waa nidaam caafimaad ee isku xiran oo la yiraahdo health mataqaana surveillance program waa nidaam sahan oo caafimaad kaasoo loogu talagalay in lagu sahmiyo hawada waxaa la rabaa in la sameeyo air quality control waxa la yiraahdo ama air surveillance la socodka hawada tayadeeda waxaa la isticmaalaa diyaarado drones kuwaasoo lagu dhajiyaa qalab la soconaya hawada waxa ku jiro ama hawada wasaqowga hawada waxaa inta badan la cafiiriyaa waxa la yiraahdo oo la cabiraa PM 2.5 iyo PM 10 waxaa la cabiraa waxa la yiraahdo ozonka dhulka ka soo baxayo ee keenaya wasaqowga waxaa la cabiraa carbon monoxide ka warshadaha ay sii daayaan waxaa la cabiraa nitrogen oxide ka NOx ka iyo smoke ama fog hawada qaaca ku jiro inta uu la egyahay inta oo sanbabada bini'aadamka waxa yeelay karo ayaa la fiiriyaa iyadoo la isticmaalayo diyaaradaha droneska lagu xirayo qalabka surveillance ee sameynaya sahanka si loola socdo hawada aad muhiim u tahay arintaas waa air surveillance ayaa la yiraahdaa ama air quality control la socodka tayada hawada Soomaaliya waa muhiim waxa soo galayo satellite la isticmaalaa oo lagu ilaaliyaa qaaca fog hawada ku jiro iyo fog ama smoke inta uu la egyahay ayaa lagu ogaadaa dawladaha waaweyn iyo kuwa yararka waa isticmaalaan Soomaaliya hadda dawlado badan jira ka caawin kara arintaas aad muhiim u tahay maxaa yeelay in la socdo hawada wixii soo galo waa muhiim isbitaaladan waxaa la rabaa dhakhaatiirta inay diiwaan galiyaan cudurrada epidemiga ama epidemiologiga inay diiwaan galiyaan khataraha dadka baaritaan lagu sameeyo xanuunada si isku leeyihiin dadka 10 qofba haddii calaamado lagu arko in la diiwaan geliyo la sameeyo data mataqaana monitoring center la sameeyo xog lagu socdo xogta baaritaano dhiig iyo saxari wax walba loo sameeyo dadka la diro investigation maaragtay muxuu ahaay surveillance team la diro koox mataqaana quwaraa oo wax baarto in la diro lagu sameeyo dadka contact tracing waxay dhahaan la daba galo oo runtii xogtooda iyo mataqaana la socdo dhaqaaqooda sida ay yihiin xuduudaha dalka la xiro sahan lagu sameeyo hawada sahan lagu sameeyo ajnabiga imaanaya dalkana lagu sameeyo sahan iyo baaritaan shaybaarkii lagu la socdahay baaritaanada hawada la sameeyo ee central loo dhisay adduunka jasiiro kala laga dhisi karaa waxa la yiraahdaa air quality control surveillance central la dhahaa waa lab lagu la socdo qaaca hawada wasaqda soo gashay cudurrada soo galay haddii diyaarada keeneen haddii kaneecadan iyo barbaran diyaarada keeneen haddii diyaarada ay buufinayaan sun dhulka dadka saameynaysa jooga iyo xayawaanka waxaas oo dhan la rabaa in la socdo si loo ogaado khataraha waxaan ay keenayaan Soomaaliya waa la soo galay Soomaaliya ma aha sida hore shalay hadad ogeedeen wasaq sun lagu shubo kalluun la xaalafiyo wuxuu ahaa shidaal iyo kheyraad la boobay macdan maanta waxay mareen hawada in laga soo galo marka hawada in laga soo galo oo hawadii la soo galay ay dadkii dhulka jooga saameyn ku yeelato war dadka maanta waxa aragteen recurrent fever mataqaana waxa aragteen flu hargab soo noqda dadka lagu arkay waxa lagu arkay dadka muruq xanuun waxa lagu arkay dadka neef qabatin waxa lagu arkay dadka muxuu ahaay nabar ka soo baxay dadka waxay ka sheeganayaan jilba xanuun iyo muruq xanuun jirgo kala goysadii waxa soo dhan waxa keenayo waxa waaye hawada Soomaaliya laga soo galay waxaana la isticmaalaa wax la yiraahdo muxuu ahaay waxa la yiraahdo betanita iyo sabanita ayaa la isticmaalaa oo maxay yihiin waxaas waa sun lagu buufiyo hawada iyo waxa waa cayayaan la keeno dalka oo lagu tarmiyo waxaana lagu sii daayaa inta badan cayayaankaas meelaha xeebaha badda ayaa lagu daadiyaa kadibna ayaa dhalo ukumahoodii sii faafo ukuma badan ay soo saaraan kadib way dhashaan marka haddii faafaan ay galaan cid celi karta ma laha magaaladii galayaan meel kasta galayaan dadkii raacayaan marooyinkii maryaha ku galayaan meel kasta galayaan guriyihii galayaan meel kasta lagu arkay Soomaaliya haddaad been u moodaan marka aan sheegayo waad soo ogaan kartaan intiin hadda daawanaysana fadlan waxaan ka codsanaa qaybta hoose comment ku soo qora Soomaaliya ma ku aragteen baranbarooyin nooc kala oo yar yar oo gudguduuda ma aragteen guryaha ma ku aragteen maqaayadaha ma ku aragteen hoteelada ma ku aragteen sariiraha ma ku aragteen basaska ma ku aragteen meelaha dadka isu yimaada isbitaalada ma ku aragteen waxaas oo dhan soo sheegay kaneecada ma ku aragteen guryihiina masquulaha hoteelada maqaayadaha ma aragteen kaneeca nooc kala oo yar yariise baranbaro gaduudan oo nooc kala ma aragteen war waxa aan sheegay waxba ka jiraan soo baara idib u baara xeebaha tagay soo sahmiya hawada ma aragteen dadka hargab soo noqonayo muruq xanuun ma la arkay joogtaa ma la arkay dadka neerfo iyo xanaaq dadka nooc kala ay qabi jireen ma lagu arkay muxuu ahaay cudurro kala duwan oo ilmaha ay ku dhalanayaan ma la arkay kaliya xanuun badan ma la arkay dadka neef qabatin qabanayo sabab xanuun muxuu ahaa xasaasiye aan xal lahayn
muxuu ahaa indhaha dadku xanuuno oo gudaha ka xanuuno neerfo iyo mata xanuuno u eg sida migraine oo kale oo dadka hal dhinac ka hayo dhabar xanuun joogtaa jilba xanuun luga barar waxaasoo dhan aan sheegayno waa hawadii Soomaaliya la soo galay waxaana keenayo hawada in sun lagu buufiyo iyo waxa kale oo keenayo waxyaabaha badda la keenay oo la soo daadiyay oo xayawaanka hadda aan sheegayo baranbarada iyo waxyaabaha yararka iyo kaneecada oo dadka qaniinayo ku beeray xanuunada marka laga soo tago hadda kaneecada aan sheegay sika viruska ay keenay iyo dengiga nooca kala ama malaria nooca kala ay keenayso iyo midda keenaya asmada iyo lung disease ama pulmonary disease ka keenay cudurrada sanbada ku dhaco waxa la arkay baranbarada inay keento neerfo nooc kala oo dadka aan wali loo arag Soomaaliya oo dadka indhaha gudaha ka xanuuno qaar indhaha dhiig soo galay dadka qaar dhiigay matayaan qaar dhiigay dhiig ka imaanaa qaar neef qabatina yeelanaya qaar sanbada ama taqaana bararaay qaar lugaha bararaay qaar jilbaha bararaay waxa soo dhan la arkay qaar maqaarka xafafayo gubanayo waxa kale oo dheeraad oo la arkay Soomaaliya hadda lagu arkay in la keenay kaniini nooc loo isticmaalo gas magaciisa dib ka soo sheegi doona oo dadka ku keeno waxa la yiraahdo muxuu ahaay BMI la yiraahdaa ama GII la yiraahdaa gaaska caloosha ku dhaco keena xiidmada leaninska stomach leaninska caloosha xiidmadeeda ayuu ku dhacaa marka wuxuu ku keenaa halii dadka autoimmune disease ayuu ku noqdaa oo unugyada jirka isduqeeyo oo isweeraro ultimately wuxuu keenaa in qofka oo anemia degdeg ku keeno iyo dhiigbax gudaha qofkana pressurekiisa oo markasta dhaco ilaa vitamin B12 tira badan oo qaato ama injection xaaladaha halis oo galo cuntada uu qaaday way qofka lack of appetite ay ku dhacdo waxa soo dhan oo xanuun la daaweyn karana ma aha laakiin waa xanuun lala soco karo oo gaaskii la yaqaan ka duwan waayo stomach ulcer ayuu leeyahay waana runtii leaninka stomach koona saameeya marka xanuun aad u khatar badan oo dhibaatadiisu ay badan tahay waaye asna waa la keenay marka waxa loo baahan yahay la socod bahda caafimaadka wasaaradda caafimaadka qaatiirta iyo muxuu ahaa in la kaashado WHO iyo dawladaha kale partners kale leeyahay si loo ogaado oo loo sameeyo muxuu ahaa ilaalinta badqabka xuduudaha iyo badda iyo muxuu ahaa hawada Soomaaliya oo air quality control loo sameeyo surveillance la socodkii cudurrada epidemiologica ama epidemicska loola socdo haday noqon lahayd badii iyo hawadii iyo bariga intaas ku soo gabay aad u mahadsantihiin rushaak subscribe kaya video meel dheer gaarsiin asxaabtiin la wadaaga inta muuqaalkan soo arkay waxaan idin rajeynayaa khayr caafimaad bye bye